qaraxyo culus iyo bambooyin ayaa laga maqlay magaalada Qudus iyo waliba sidoo kale caasimadda Israel Tel Aviv taasi oo muujinaysa heerka sare ee colaadda u dhaxaysa Iran iyo Israel. Taliska difaaca Israel ayaa waxa uu xaqiijiyay in Iran ay gantaalo horle ku garaacday bartilmaameedyo gudaha Israel ku yaala iyada oo digniinaha Siiriga laga maqlay guud ahaan Israel. ila abni ayaa waxay xaqiijinayeen in hal qof lagu dilay bartamaha Israel halka dad kalena ay dhaawacmeen. Dhanka kale wararka laga helayo magaalada Tehran ee caasimadda Iran ayaa tilmaamaya in xaaladdu ay ka sii dareyso iyada oo dad badan ay isku dayayaan in ay ka qaxaan caasimadda Iran, laakiin jidadka oo ciriiri ah ayaa caqabad ku noqday dadaaladaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka ku sugan Tehran inay si degdeg ah uga baxaan magaalada, taasi oo loo fasirtay cadaadis kale oo lagu saarayo Tehran. Intii uu socday shir madaxeedka G7 ee ka socda dalka Canada, wadamada G7 ayaa soo saaray warmartiyad ay kaga hadlayaan xiisadda gobolka Bariga Dhexe. Waxa ay si cad u taageereen xaqa Israel ay u leedahay isdifaacid, iyaga oo mar kale carabka ku adkeeyay in Iran aysan marnaba heli karin hub nuclear ah. laakiin xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wareysi uu bixiyay uu ku sheegay khaarijinta Khomeini inay keeni karto soo afjaridda colaadda ka taagan gobolka. Hase yeeshee Trump ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu diiday qorshahaasi sida ay warbaahinta Mareykanku ay sheegeen. Diblomaasiyad kasta oo la isku dayay in lagu xalliyo xiisaddan waxa ay u muuqataa mid ku kala firdhaysa labada dhinac. Dagaal culus iyo waliba xal siyaasadeed oo aan wali muuqan ayaa xaaladda sii cuslaynaysa. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu shaaciyay in Mareykanka uu Iran u soo bandhigay kulan toos ah oo miiska wadahadalka lagu soo celinayo. Hase yeeshee Iran waxa ay si cad u sheegtay in aysan joojin doonin gantaalada ay ridayaan xilli kasta ilaa waa beriga uma kala socna, oo waxa ay sheegeen in mar kasta ay ridi karaan daqiiqada ay rabaan inta ay Israel weerarada ay wadaan. Dhanka kale, safaaradaha dalalka kala duwan ayaa waxa ay bilaabeen in ay muwaadiniintooda kala baxaan Israel. Safaaradda Argentina waxa ay ku boorisay dadkeeda in ay dhinaca Jordan ama Masar hadba meeshii u fudud ay uga baxaan Israel. Safaaradaha Jarmalka iyo waliba Shiinaha ayaa iyaguna waxa ay qaadayaan tallaabooyin la mid ah midda ay qaaday safaaradda Argentina ee Israel ay ku leedahay. Hogaamiyaasha kala duwan ayaa si isku mid ah u cambaareynaya xiisadda gobolka. Saxafiga caanka ah ee lagu magacaabo Carlson oo u janjeera dhanka xisbiga Jamhuuriga ayaa si adag uga digay dagaal lala gala Iran. Waxa uu sheegay in ay dhaawici karto awoodda Mareykanka ee uu ku leeyahay adduunka. Laakiin Trump ayaa si kulul uga jawaabay hadalkaas, isagoo ku tilmaamay mid aan wax macno ah lahayn, aanan waxba laga soo qaadaynin. Isku soo wada duuba xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israel ayaa waxa ay galaysaa wajigii ugu khatarta badnaa tan iyo bilowgii sanadkan. Walaaca laga qabo dagaal ballaaran ayaa sare u kacay iyadoo indhaha dunida ay hadda ku sii jeedaan Qudus, Tel Aviv iyo waliba sidoo kale Tehran oo isu jawaabaya marba marka ay qolo kale ay beegsi sameyso. Fiidkii hore ee shalay ay ahayd ama xalay markii Israel ay duqeeyeen telefishinka iyo waliba raadiyaha qaranka ee dalkaasi Iran, iyada oo telefishinka uu si toos ah isaga oo tabintiisa tooska ahayd ku jira laga arkayay stuudiyaha oo hal mar ruxmay kadibna dhismihii uu ku soo dhacay firarka gantaaladii ay soo rideen Israa'iiliyiinta.